fiidnimo wanaagsan haween wanaagsan waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha barnaamijka aan ku falanqeyn doono ugu dambeeyay ee xoogga iska caabinta ee Gaza iyo beegsiga ay la beegsanayaan Israa'iil qodobada maanta aan ku lifaaqi doono wuxuu diiradda saarnaan doonaa hadba wixii ka soo kordho marinka Gaza iyo wixii ka socdo magiciga fadhiyooriye Cabdisalaam oo mar walba waa falanqeeya barnaamijyada marinka Gaza iyo wixii hadba warar soo kordha. Cabdisalaam soo dhawow adoo daawadayaasha u faahfaahinaya warbixinadii ugu dambeeyay ee marinka Gaza. shirwaca waa mahadsan tahay sida aan la socono marinka Gaza waxaa ka socda waxyaabo mucjiso ah oo inta badi mararka qaar aad moodo in warbaahinta Soomaalida aysan muujinba waxyaabaha ka socda marinka Gaza ayadoo ay ka mudan tahay waxyaabaha lagu mashquulayo gudaha wadanka in ay ka mudan tahay in lagu mashquulo oo la soo bandhigo waxyaabaha ay mucjisada ay sameynayaan muqaawamada reer Falastiin ee ka dagaalamaysa gudaha marinka Gaza ee carigaasi Falastiin shirwacow sida aan la socono 48 saac ugu dambeeyay waxaa dhacay howlgallo mararka qaar la dhihi karo waa dhif inaadir in ay dhacaan marka hore waxaa la islahaa labada bilood ama bishii ugu dambeysay waxay ahayd bilihii ugu mashquulka badnaa ee muqaawamada ay sameeyeen waxyaabo mucjiso ah laakiin marka aad fiirisid 48 saac ugu dambeysay howlgalladii ay sameynayeen muqaawamada waxay ahaayeen wax lagu tilmaamay in ay mucjiso tahay howlgalladani shirwaca waxay ka kala dhaceen waa 6 howlgal oo aad halis u ah waxay ka kala dhaceen laba waxay ka dhacday Khan Younis mid wuxuu ka dhacay waqooyi bari Khan Younis midna wuxuu ka dhacay bariga Khan Younis afarta kale waxay ka kala dhaceen Jabaaliya Shujaaciya iyo xaafadda Al-Tufaax howlgalladaasi shirwaca markaad si u fiirisid waa howlgallo la dhihi karo muqaawamada xitaa waxay ku dadaalayeen in ay qabsadaan askarta yahuudda ee duulaanka ku ah cariga reer Falastiin ama guud ahaan dhulka reer Falastiin inta ka hartay hadda ayadoo badiba inta ay hore wada qaateen tacticada iyo farsamada ay ku dagaalamaysay muqaawamada waxaad moodaa in ay tahay ama ayba in badan wax ka bedeshay hadda waxay u dagaalamayaan ama ay u socdaan hal ama laba ay u wada socdaan meesha ugu badana waxaa la xaqiijinaya in ay saddex yihiin waxaad arkaysaa in mid ka mid ah askarta muqaawamada ka mid ah in asagoo weliba taangiga uu kusoo socdo hortiisa ay tahay inuu hortiisa intuu ku ordo uu miino u saaro weliba qaybta shidaalka ama matoorka la leeyahay u saaro lama xaqiijin kara xitaa qaabka uu ku saarayo iyo sida uu meeshaas ku tegayo waayo shirwac markaad fiirisid taangiga kusoo socdo taangiyadana waa taangiyada ugu casirsan caalamka sida yahuudda ay sheegeen kaamirooyin ku xiran afarta dhinac waxaa la yaabanya marka siduu halkaas ku gaaray waa un mucjisay falanqayaasha qaar ku leeyihiin dagaalyahankii tegay halkaas intuu miinada saaro kasoo tegaya intuu asagii saaraa haddana wuxuu ku dhufanaa lagu leeyahay gantaaladan garabka laga tuura alyaasiin 105 meesha ku kacaya marka hadda labadii howlgal ee ugu dambeysay ugu khatarsaneed markaan soo qaadano mid waxaa fuliyey Israa'iil Qudus garabka militariga ee Islamic Jihad Khan Younis oo ka dhacay waxay la bagsadeen gaari nooca askarta qaada oo gaashaman nimir loo yaqaano gaarigii uu gubtay laakiin Israa'iiliyiinta ama yahuudda noomay sheegin dhimashada halkaasi ka dhacday Israa'iil Qudus muuqaal ay soo bandhigeen waxay ku sheegeen annaga hawsheena waa qabsanay ilaaha ku mahadsan gaarigina waa gubnay dhehen wuu basbeelay howlgalkii labaad ee ugu dambeeyey waxaa fuliyey Al-Qassam oo ah garabka militariga Xamaas isla gaarigaas oo haddana ahaa haddana labadii gaariba ilaahay amarkiisa ciidan u waday wax ka baxsada lama sheegin halka yahuudda ay qarinayso waxyaabaha dhacaya shirwaco marka howlgalladaasi halista ah waxaad moodaa in indhaha shacabka Soomaalida ah ama islaamka warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga in aysan u muuqanin
walow haddii aad social media geshid aad ku arkaysid muuqaaladaas halista ah inkastoo aad u malaysid in meelaha qaar marka lagu arko shirwacow laga qariyo indhaha caalamka oo la dhahayo maya kuma haboono kan waayo waxa ay soo bandhigaan waa ceebta iyo fadaxadda militariga yuhuudda. cabdisalaam waxaan arkaynay muuqaalada qaar ay soo bandhigeen xooga iska caabinta muuqaalo waxaa la arkayay iyagoo gantaalo la dhacaya qeybo ka mid a goobaha ay ku sugan yihiin israa'iiliyiinta gantaaladaas qaybo ay ku jiraan hoobiyaal lagu garaacayo. maxaa la dhihi karaa farsamadan cusub ay la imaadeen xooga iska caabinta? shirwacow muqaawamada maalmihii ugu dambeeyay waxay la soo baxeen geesinimo dheeri ah xitaa falanqayaashii arrimaha militariga istaraatiijiyadda falanqeynaya ayaa yaabanba waxaan meesha ay ka keeneen aan la garanayn ay ku leeyihiin. laba midaa marka loo tirinayaa in muqaawamada ayaga firfircooni dheeri ay heleen oo ah in dhalinyaro cusub lagu soo diro oo dhiig cusub la geliyay muqaawamada. taasna hore waa looga filayay in ay dhici doonto oo ah dhalinyarada in ayagaba ay doonanayaan ciidanka muqaawamada inay qortaan halka askarta yuhuudda ay ka cararayaan in ay qortaan ayaga askarinimadii oo marka hore yuhuudda lagu faani jiray in askari baan nahay lacaga badan la siin jiray. marka waxaa jirto oo aan rabnaa in aan ka dhawaajino qodobka labaad oo ah shacabka reer falastiin ee Gaza ku nool waa la gaajiysiiyey gaajo weliba macquul ahna mararka qaar caluudhi bil 2 bil 3 bil cunto ma helaan. marka qodobka meesha ku jira ayaa waxaa ah dhalinyaradii muqaawamada ee dagaalamaysay ururada kala duwan ahaa meelaha qaar waxay u daliishanayaan falanqeeyaasha dhalinyaradii waxay leeyihiin intay gaajo nagu dili lahayd godka ama dhulka hoostiisa aan ku jirno banaanka aan si xayi ah ugu dhimanno oo ah mararka qaar aad arkaysa xitaa askarta in ay qoryaha la qabsanayaan oo ah ay isku dayaan inay afdubtaan. waxaa jira qolo calooshadu shaqaystayaal ah oo israa'iil ay dabada ka wado oo badanaa dagaal la gala qoladaas oo mar walbaba la dagaala xooga iska caabinta. xooga iska caabintana mar walba waxay soo bandhigeen saraakiil ka mid a qoladaas oo la laynaya. maxaan bulshada ugu faahfaahin karnaa qoladaas maxay yihiin? waa mahadsanta waa su-aal muhiima. tiimkan ama qoladan horta waxaa hogaamiyay nin yaasir abushabaab la dhaho oo dagaalyahanadan marka ugu badan ama tirada ugu badan ee la gaarsiiyey 300 dagaalyahana ay yihiin. kuma dhacaan horta muqaawamada inay ka hortagaan ciidanka yuhuudda ee qalab ahaan iyo tababar ahaan iyo hub ahaan dhammaystirnaa ayaa ku dhici laha inay ka hortagaan. marka qoladan kuma dhacan inay ka hortagaan. waxaa markaa ay sameeyaan oo keliya in meelaha gargaarka lagu qaybinaya in ay waxlaayaan in ay qaab sirdoon ahaan ayagoo iska dhigaya oo kooxaas aan ahayn ay xooga ay raadiyaan. tiimkan marka shirwacow ninkan abushabaab la uu hogaamiyo waa tiim calooshooda shaqaystayaal waa tiim reer Falastiin. marka mar dhaweyd xog waxaa jirta Al-Jazeera ay soo bandhigtay oo ah lacagaha ay qaataan inta ay dhantahay iyo sida ay u qaataan lacagahan. shirwacow waxaa lagu sheegay in ay kan ugu badan oo kooxda hogaamiya oo uu yahay yaasir abushabaab sida la xaqiijiyo wuxuu qaataa $900 ilaa ay kan ugu hooseeya oo $300 ah. marka lacagahaasay ku qaataan. marka lacagaha waxay ku qaataan hubka markii iyo rasaasta markii ay ciidanka yuhuudda ay soo siinayaan kooxdan ayaa marka loo soo dhiibaa lacagaha. sida ay ku qaybsanayaan iyo meesha ay ku qaybsanayaan marka ayaga u taallaa qofka soo qaadaya hubkaas ayaa marka lacagta soo qaado hubka soo qaadaya. marka waxaa jirta shurub oo marka hubkan ay ku dagaalamayaan kooxdan ama ay dhaca ku geysanayaan dagaal ma la dhihi karo waa dhac iyo kufsi waxay geysanayaan wax la dhihi karo. shacabka gargaarka geysanaya dhacan xitaa mararka qaar waxaa lagu eedeeyaa in ay falal anshax ka baxsan ay sameeyaan. waxaa jirta marka in hubkan intay ka keenaan waa yaa siiya ciidanka yuhuudda ha siiyaan laakiin ciidanka yuhuudda ma hubkoodiba ma qalabkooda casriga ayaa marka ma aha sida la xaqiijiyey. waa hubkii mujaahidiinta dhalinyarada mujaahidiinta ay ka furteen waaye markii ay dagaalamayeen
askari walba markuu shahiido haddii goob halisa uu ku dhex jiro hubkiisa marka muqaawamada kama gaaraan inay qaadaan waa laga tagaa. hubkii markii saas ay ku qaateen ciidanka yahuudda ayaa marka uu yahay hubkan dib loogu soo celinayo Shirwac. waa tahay xaggee marayaan wadahadaladii xabad joojinta ee ka socday Israel iyo Xamaas u dhexeeyay oo ka socday Qatar? warbixinadii ugu dambeeyay bal adoo daawadayaasha u faahfaahinaya. warbixintii ugu dambeysay dabcan Shirwac sida aan la socono waxaa wada hadalla aad u adag ay ka socdaan magaalada Dooxa caasimadda dalka Qatar. halkaas waxaa ku sugan Mareykanka Masar iyo Qatar oo ah wakiilada halkaasi dhexdhexaadinaya. waxaa jira ayadan oo halkaasi ku sugan si dadban weli la sheegaya in kastoo aysan muuqanin wafdi Turkiga ka socda. marka waxaa jira in wada hadallada la xaqiijinayo in ay marxaladii koowaadba aysan ka gudbin, wejiga koowaad aysan ka gudbin. taasi waxaa inoo xaqiijinaya aan iraahde afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Majid al-Ansari oo xalay hadlay goor dambe ayaa wuxuu sheegay in rajo badan wada hadallada laga muujinayo in ay noqdaan kuwa najaxa, laakiin meesha ugu adkeed ay marayso oo ah marxaladii koowaad ee wada hadallada inaan laga gudbin. laakiin dhammaan wakiilada reer Falastiin iyo kuwa ka socda dhankan kale Israel ay goobta ku sugan yihiin. waxaa la sheegaa Shirwacow xogo hoose oo soo baxaya in ay shir albaabada u xiran yihiin ay galeen Mareykanka iyo Qatar iyo Masar iyo Israel oo aanan la garanaynin waxyaabaha ay ka wada hadleen. waayo shirka albaabada u xirnaa saxaafadda looma ogoleen, mas-uuliyiintii shirka gashayna Shirwacow looma ogoleen in ay hadalkaasi ay bixiyaan. marka hore waxaa dhici jirtay in hadal hoose uu soo diso, laakiin kan ma jiraan wax hadal oo la bixiyay oo si hoose u soo baxay. marka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo hadlay xalay Qatar Majid al-Ansari ayaa wuxuu intaasi ku daray in ilaa dowladda Qatar ay siyaasadaheeda iyo waxyaabaha ay rabto ay ka gaarayso ay wada hadal sii wadi doonto. laakiin hadalkiisa waxaa ku jirtay afhayeenka in meelaha qaar uu dhahay Israel ayadaa wada hadalka diidan, cidda wada hadalka diidan oo hadalku ka socon lahaa yahay waa Israel siduu afhayeenku sheegay. waa tahay Cabdisalaan, wada hadalladan socdo Qatar ka socdo ma la isdhihi karaa waa wada hadal mina dhal noqon karo oo xabad joojinta ay ku istaagi karto, maadaama welina ay Israel weli beegsanayso dagaallo ay ka socdaan weli xarumo badan oo Falastiin ka mid ah, goobo badan ee weli Israel maantadaana u dambeysay ay beegsanaysay. ma la isdhihi karaa waa maantan xabad joojinta waa mid dhaqan geli karta? Shirwac jawaabtu wahaa markii si loo fiiriyo waayo dhinaca anaga ka fiirinayna waxaa waaye waxyaabaha mucjisada ee muqaawamada ay sameynayaan dardarta xoogila ay ku socdaan. haddii ay kusii socdaan oo ilaahayna uu fududeeyo waxaa la dhihi karaa yuhuudda waxaa qasab ku noqonaysa in ay wada hadal qaataan. laakiin yuhuudda ayada kama go-no in ay wada hadal qaataan, oo waxaa ka go-an in aysaan isaga dawareejiyaan dhexdhexaadayaasha isaga dawareejiyaan. Israel ayada waxyaabaha ay ku adkaysanaysa ayaa waxaa ka mid ah in Xamaas markii hadda ugu dambeysay ee loo gudbiyey heshiiska waxaa ka mid ahaa in Xamaas ay wax ka bedesho oo ah in gargaarka ay toos u qaybiyaan UN-ka oo gacantooda laga saaro ciidanka yuhuudda oo ilaalinaya iyo shirkadda Mareykan oo qaybinayso. in dadkii dhammaan ka baxay marinka Gaza ama meelaha kale u qaxay in ay dib u soo laabtaan, iyo in raashimo gawaari aad u fara badan ilaa ay 1000 gaari lagu tilmaamay in ay soo geliyaan. Israel waxay ka biiyo in ay ciidanka Israel ku jira gudaha marinka Gaza ay dhammaanba ka wada baxaan. Israel markii intii way diiday waxay sheegtay in marinka Gaza aysan ka bixinin oo ilaa 5 kilomitir ay gudaha ugu jirayso. walow mar dhaweyd hadal soo baxay lagu sheegay in Israel ay tanaasushay. maxay ka tanaasushay? 3 kilomitir waxay dhaadaan bixina 2 kilomitir aan ku harayna. taas marka waxay ka jawaabtay ururka Xamaas oo wakiil ka ah dhammaan muqaawamada ka dagaalamaysa gudaha marinka Gaza. waxay sheegeen
waxaas wax lagu qosay inay yihiin oo ah dhulkaagii xog aan ku haysto adna waana ku dilaya adna aamusnaa in wax macquul aysan ahayn oo dhammaan muqaawamada intii wiil uu ka dambeeyo ama cunug xitaa uu ka dambeeyo oo xabad ridi kara in aysan dhulkooda dhiibi doonin insha allah. waa hagaag daawadayaal, waxaan intaas kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii falanqeynta oo caawa aan diiradda ku saaraynay xaaladihii ugu dambeeyey ee mariga Gaza iyo waxyaabihii kasoo kordhay wadahadaladii uga socday Israa'iil iyo Xamaas ee Qatar. labadaas qodob ayaana ku falanqeynaynay caawa. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay Wariye Cabdisalaan. waxaan intaas kusoo afmeeraynaa warbixintii falanqeynta oo aad caawa ka daawateen barteena Shirwac Cumar. tan iyo intaa mid lamida barnaamijka ku kulmi doona. sidaa iyo amaano Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.